أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سلامي من الباجيكتان. Welcome back again to Ashraf Academic Online. هذه سلامي أنت كحرن أشرف Academic Online. أوكي وحين صوت عشرة نتحنا ما تروحين خالدنا عشر أدو حساب بدن أيون خالدنا توبك هذا نقصد سدين وعرضي كحرن أشرف Academic Online. عرضي كم يتأيي نقصد سدين توبك about leadership. marka topigaas ayaan ka hadli doonaa baanta bismillaah hadii aan gudo garno leader hogaamiyuhu is someone waa qof who inspire kaasoo dhiirigeliya the people dadka. Leader hogaamiyuhu is someone waa qof who qofkaasoo inspire dhiirigeliya the people dadka and gives a sense dareen of purpose oo ujeeda leh and direction iyo jiha leh and gives a sense dareen of purpose oo ujeeda leh and direction iyo jiho to his or her followers xertiisa ama xerteeda to his or her followers xertiisa ama xerteeda. Followers waxaa la dhahaa kuwa asiga raacsan يعني xertiisa waxa kuwa asiga raacsan. Okay, a leader hogaamiyuhu will have ways waxa soo wajihi doona many handles caqabado badan. A leader hogaamiyuhu will have ways waxa soo wajihi doona many handles caqabado badan in life xagga nolosha from ka imaanaya various sections qaybo kala duwan from ka imaanayo various sections qaybo kala duwan including oo ay ka mid yihiin his own followers xertiisa but there comes balse waxa imaanayo point qodobo where halka leader hogaamiyuhu should choose between his followers oo kala dooranayo xertiisa. Where halka a leader should choose between his followers oo kala dooranayo xertiisa halka oo hogaamiyaha kala dooranayo xertiisa and achieving oo xaqiijinayo his goals miradhalka xaqiijinaya his goals hadafkiisa ama yoolkiisa. That is where waana meesha the true test ee imtixaanka dhabta ah. Leadership quality tayada hogaaminimadu especially gaar ahaan when goortii there are turbulent time oo jira waqti adag ama waqti aad u xun during inta lagu guda jiro his or her test imtixaankeeda. Okay, leadership quality tayada hogaaminimadu especially gaar ahaan when goortii there are turbulent time oo waqti aad u xun jiro during lagu guda jiro his or her test imtixaankeeda ama imtixaankiisa to be ay ku noqon lahayd a good leader hogaamiye wanaagsan. He asiga should be aware of waa inuu la socdaa all the human bini'aadanka dhammaan and every is victim nooc walba of life oo nolosha ka mid ah and every is victim of life nooc walba oo nolosha ka mid ah. You must search waa inaad raadisaa the way wadada that you can be a leader oo aad ku noqon karto hogaamiye. You must search waa inaad raadisaa the way wado that you can be a leadership oo aad ku noqon karto hogaamiye. The students ardayda of today ee maanta are the leaders waa hogaamiyaha of tomorrow ee beri. The leaders are the students ardayda of today ee maanta are the leaders waa hogaamiyaasha of tomorrow ee beri. So sidaa daraadeed goodbye nabadgelyo. Okay, intaas ayay u soo talagalay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. intaan ku kulmeen cashir kulaad xiiso badan.